أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad naga daawanaysaa Ogsoonow TV weynka ku yaala magaalada Muqdisho. asxaabta please subscribe share and comment inta waan la saaro si share gareeyo. waxaan cawad idin haynaa Norway oo wiil Soomaali ah ku abaalmarisay geesinimadiisii ama hooshii fiicneed oo qabtay. waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah oo hooyo iyo walaalo ay jiifeen. keligii ayaa reerka ka soo jeeday fadhiga ayaan wax ku aqrisanayay ayuu yiri Maxamed Xuseen. wuxuu arkay gurigii ay degnaayeen oo gubanaya, wuxuuna banaanka u saaray dhammaan dadkii ku jiray qaybta kore oo iyagu ay ku noolaayeen. markii aan banaanka u soo baxnay waxaan aragnay wiil yar oo isku dayaya in uu daaqada jabiyo. waana caawinay, waana kasoo bixinay dhismaha ayuu hadalka ku daray. wuxuu ii sheegay in walaalkiis uu ku jiro gudaha guriga. markaas ayaa gudaha u galay si aan u caawiyo wiilkaas oo 8 sano jirka ah. wiilka yar uu badbaadiyey wax miir ah ma lahayn, wuxuuna ku caburay qiiq xilliga uu guriga galay. dabka ayaa xoog badnaa, wuuna arki waayey gudaha guriga sida uu u sheegay Ogsoonow TV. Maxamed ayaa sheegay waxaana isticmaalay tooshka taleefankayga. waxaan arkay isagoo maradii iyo dharkii kali ee uu xirnaa ay gubteen. markii uu soo badbaadiyey wiilka yar, Maxamed waxaa gacmaha ka gaaray dhaawac fudud, wuxuuna ku caburay qiiq. isaga iyo cunuga uu badbaadiyey waxaa loo qaaday isbitaalka. maxaa ku dhiirigeliyey in uu halista u bareero? waxay ahayd xilli aan la sugi karin damdamiska, maadaama dabka uu aad u xoognaa. qaybo badan oo guriga ahna ay gubteen. Maxamed oo guriga ka galay dariishada wuxuu qiray in Alle uu ku hagaajiyey in uu ficilkaas sameeyo. haddii aan sugi lahaa damdamiska, cunugaasi nolol laguma soo badbaadin lahayn. markay yimaadeen guriga aad buu u baaba'ay, sida aad sawirkaas u dheehan kartaan. abaalmarintii la siiyey Maxamed Xuseen waxaa la guddoonsiiyey billad dahab ah oo ah abaalmarin la siiyo dadka naftooda u biimeeya badbaadinta nolol kale. waana qofkii 15aad ee Norway siiso abaalmarintaas. aniga ficilkaas uma samayn in bilad la igu siiyo, oo hadalkiisa ku yiri Maxamed Xuseen. waxaa ii muuqatay oo keli ah in cunugaas yar uu u baahnaa in la caawiyo. waxaan u qabtay wixii aan u qaban karay ayuu yiri Maxamed Xuseen. caafimaadka wiilkii uu badbaadiyey ayaa hadda soo hagaagay, wuxuuna aadaa iskuulka. Maxamed ayaa weli la xiriira reerkiisa. waxay igu noqotay farxad weyn oo aan marnaba filayn, maadaama aan horey la iigu sheegin ayuu yiri gudoomiyaha gobolka uu degan yahay oo ku booqday iskuulka uu dhigto. Maxamed ayaa guddoonsiiyey abaalmarintaas. wiilkan aad ujeedaan Maxamed Xuseen lala leeyahay oo wejigiisa aad ugu dheehan kartaan TV weyn Ogsoonow. wiilkuna Norway waxyaabaha uu sameeyay wax kasta oo laga filayo Soomaali walba oo jooga Muqdisho. waxaa la rabaa diyaarna Soomaali in qof kale ama walaalkiis kale uu caawiyo, weli saalis caawiyo, garab ha la siiyo. insha Allah waxaad kuwa intaan ka badan waxaa kaga bogan kartaan Ogsoonow TV. fadlan subscribe share and comment inta waa la saaro.